Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono qorshaha laga leeyahay dalacsiinta uu wado madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Waxa uu darajooyin ciidan ka safayaa saraakiisha ciidamada qaybahooda kala gedisan. Haddaba arrintaasi muxuu kaga golan yahay Farmaajo? halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona warbixintan ayaana diradda ku saari doona arrimahaasi. Ha yeeshee intaanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayaa in muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saariyo channelka furan ee gambaraalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah siyaasiyiinta ku mideysan golaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Villa Soomaaliya gaar ahaan madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo in uu horinayo colaadaha sokeeye oo hadda ka holcaya qaybo kamid ah dalka. Warsame oo ka qaybgalaya dood ku saabsan caqabadaha hortaagan doorashada ayaa sheegay in madaxtooyada Soomaaliya oo 5 sano ee la soo dhaafay khilaaf xoogan kala dhaxeeya qaar kamid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo beelaha ee hadda horinayso mas'uulna ka tahay dagaaladii Boosaaso iyo Beledweyne. wuxuu intaasi ku daray in dhaqanka Villa Soomaaliya uu yahay mid dalka ka riday haadaan dheer maadaama ay siyaasad ahaan iyo amni ahaanba ku fashilmeen isla markaana si joogto ah u abuuraan colaado u dhaxeeya beelaha Soomaaliyeed iyo carqaladeynta maamulada. Farmaajo oo waqtigiisu dhamaaday 8 Febraayo ee sanadkii hore ayaa tan iyo 2020 ku dadaalayay in uu xilka sii hayo wax ka baxsan muddadiisa sharciga ahayd, wuxuuna carqalad ku hayaa hirgelinta hannaanka doorashada Soomaaliya sida ay aaminsan yihiin dadka rogroga ama taxliiliya siyaasadda Soomaaliya. hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa soo dhaweeyay shirka golaha wadatashiga qaran ee axadii ka furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho kaas oo lagu hagaajinayo qaladaadkii doorashada uuna shir gudoominayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Farmaajo ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in uu maleegay afgambi 2 jeer 2021 kii ugu dambeeyay wuxuu dhacay 27 December kaas oo uu ka hortagay ra'iisul wasaaraha oo helay taageero caalami ah iyo mid deegaan intaba. Farmaajo waxa uu dalacsiin ama darajooyin ciidan ka safaya saraakiisha ciidamada qaybahooda kala gedisan. madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu si joogto ah u qaybinayaa darajooyinka ugu sareeya dalka. saraakiisha waxay sheegayaan in uu yahay hogaamiyihii ugu badnaa ee bixiya darajooyinka sare ee ciidanka iyadoo si weyn loo bootinayo asgar dhawaangala balse u dhaga fudud amarada madaxda. habka loo xulanayo saraakiisha dalaceesa ayaa sidoo kale si weyn loogu dhaleelay nidaamka Farmaajo. madaxweynaha waxaa lagu eedeeyay in uu dalacsiinta u fiiriyo dantiisa gaarka ah balse uusan qiimeyn shaqada uu sargaalkaasi u hayo dalka. wuxuu noqday madaxweynihii ugu badnaa ee darajada gaashaanle sare gaarsiiya saraakiil aan weligood hal kaarto oo dagaal aan curin, furin dagaal tegin, aragti amni curin oo ciidanka aan muddo badan ku jirin, ayuu yiri sargaal ka tirsan booliiska Soomaaliya oo ka gadoodsan sida nidaamka Farmaajo ugu xadgudbayo darajooyinka ciidanka Soomaaliya. haddaba arinta miiska saaran waxay tahay maxaa ka dhalan kara talaabooyinka madaxweynaha ee dhinaca dalacsiinta aan la waafajinayn nidaamka iyo sharciyada ciidanka. saraakiisha aan la hadalnay waxay qabaan 3 arrimood oo waaweyn. arinta koowaad, qiimo dhac darajo. xubnaha aan la hadalnay waxay leeyihiin marka aad ogtahay sida been ah ee sargaalkan darajada ku qaatay waxaa kugu adkaanaysa in aad adeecdo oo aad amarkiisa qaadato. waxaa kaloo imaan doonta in aysan asgarta juhdi badan ku bixin in ay darajo sare helaan maadaama ay darajada noqotay wax dhib la'aan la iska helo. halkaas darajada waa ku qiimo beeshay ayay leeyihiin saraakiishu. qodobka labaad ama arinta labaad, niyad jab.
asgar badan waxay xooga saari jireen inay horumar ka gaaraan shaqada ciidanka. waxay soo bandhigi jireen dadaal dheeri ah, hal abuur amni iyo daacadnimo shaqo si ay u dalacaan. laakiin hadda waxay markaasi u jeedaan in ay darajada sare ku xiran tahay in ay madaxda sare raali geliyaan. taasi waxay keenaysaa in ay askarta ka niyad jabaan dadaalkii shaqada maadaama aan sidaasi lagu siinayn dalacaad. waxayna sidoo kale tani saameyn xoog leh ku yeelatay shaqada amniga qaranka. arrinta saddexaad, ku laabasho. sida madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynihii hore ee dalka u karaamo tiray darajooyinka ciidanka waxay keenaysaa ayay leeyihiin saraakiishu in laga fakaro xeer sheegaya sida lagu dalici karo ama ay ku imaan karto dalacaadu. sidoo kale waxaa qasab noqon doonta in dhammaan dib loogu laabto oo loo qiimeeyo darajooyinkii la bixiyay intii uu farmaajo joogay xafiiska maadaama aan lagu saleyn shaqo amni, aqoon ciidannimo ama danta amniga qaranka. madaxweyne farmaajo tan iyo markii uu ka dhammaaday mudaxileedkiisa sharciga 8 February ee sanadkii la soo dhaafay 2021 wuxuu dalacsiiyay saraakiil tiro badan, kuwana wuxuu ka qaaday darajooyinkii ciidannimada markii ay danihiisa gaarka ah ka hor yimaadeen. madaxweynaha dalka Soomaaliya ee mudaxileedkiisu dhammaaday ayaa waxaa lagu eedeynayaa in uu markaasi ku tuntay dastuurka iyo sharciyada u yaala dalka. waxaana arrimahaasi oo idil ku eedeynaya mucaaradka Soomaaliya oo markaasi mar walbaba dhaliil u jeediya madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo. dalacaadda uu sameynayo saraakiisha ciidamada ayaa waxaa la leeyahay waxa uu kaga gon leeyahay in uu ku galo dagaal siyaasadeed isla markaana uu ku qabsado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. dagaal dhiig ku daata iyo sidoo kale afgembi labaad markii laga soo tago kii maxamed siyaad ayuu damacsan yahay ayay leeyihiin dadka rogroga ama taxliiliya arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya. mucaaradka Soomaaliya oo arrintaasi ka feejigan isla markaana wax ka og ayaa waxa ay markan yihiin kuwa feejigan oo geed gaaban iyo mid dheerba ugu fadhiya madaxweynihii hore ee dalka farmaajo. waxayna doonayaan markan in ay ka hortagaan tallaabo kasta oo uu qaado madaxweynihii hore ee dalka farmaajo. ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa isaguna kaashanaya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, mucaaradka, beesha caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed si looga hortago dhagarta ay wadaan kooxda farmaajo iyo Fahad hogaamiyaan. ciidamadii Eritrea lagu tababarayay isla markaana lagu xamanayay in ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay dalka Itoobiya kaas oo u dhaxeeyay xukuumadda Itoobiya iyo jabhadda hubeysan ee TPLF ayaa waxaa markan lagu soo celinayaa caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. waqtigan in lagu soo beego soo celinta ciidamadaasi ayaa waxaa lagu sheegayaa in farmaajo uu damacsan yahay in uu galo dagaal siyaasadeed aan natiijadiisa la saadaalin karin, weliba dalka ka ridi kara bohol siyaasadeed oo aan laga soo qaban karin. farmaajo iyo kooxdiisu waxa ay villa Soomaaliya saacad walba ku yeeshaan shir kaas oo ay uga hadlayaan sida laga yeelayo xaaladda cakiran ee dalka Soomaaliya. waxa ayna la taliyaashiisu mar walbaba kula taliyaan in uu dalka ka rido bohol siyaasadeed oo aysan ka soo qaban karin dadka markan u qeylinaya in dalka la badbaadiyo. waxaa loola jeedaa mucaaradka Soomaaliya. waxaa sidoo kale la taliyaashiisu ay farmaajo kula talinayaan inuu ka taqaluso ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble. haddii uusan ka taqalusinna uu isaga ka taqalusi doono. waxa ay arrintaasi ku sheegayaan in haddii uu ka taqalusi waayo rooble ee ku adkaan doonto madaxweynuhu soo laabashada mar labaad in loo doorto xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal waa inageynta warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media ee aan ku leenahay YouTube-ka. haddii aad daawatay warbixinteena like inoo saar, muuqaalka subscribe inoo saar channelka furaga balka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo warbixintan mid la mid ah inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.